isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa la soo gaarsiiyay askar dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen dagaalkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ku dhexmaray deegaanada Ceel Ali Axmed iyo sidoo kale Al-Kawthar oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Xaaji oo booqasho ugu tagay askarta dhaawacyada ayaa markaasi waxa uu bogaadiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadka deegaanka oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ka xoreeyay deegaanada Ceel Ali Axmed iyo sidoo kale Al-Kawthar gobolka Shabeellaha Dhexe. waxa uu sidoo kale wasiirku u ballan qaaday in isbitaalka xoogga uu soo gaarsiin doono agab caafimaad. waa kan wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Xaaji oo arrimahaasi ka hadlaya. saaki waxaan soo booqannay dhaawacyadii ku soo dhaawacmay halgankii iyo difaacii ay qaranka ugu jireen deegaanada Shabeellada Dhexe sida Ceel Ali Axmed iyo Al-Kawthar iyo maxay ahayd deegaanadaas oo dhan ay ka difaacayeen argagixisada khawaarijta ee ku soo duulay ay ka difaacayeen dhaawacyadii ka soo gaaray ciidamada iyo macaawisleyda deegaanadaas joogto heeganka u ahayd inay ka difaacaan khawaarijta deegaanka ka difaacaan heeganka u ahayd dhaawacyadii soo gaaray ayaan soo booqannay hal ayaan dul istaagnay waan wareysanay dhaawacyada ay qabaan dhakhaatiirta ka wareysanay faataxa ayaan ku soo akhrinay waa u soo duceynay waa soo dhiirigelinay waxaa soo aragnay si gaar ah 25kii dhalinyaro maxay ahayd halganka gaarka ah ka galay Ceel Ali Axmed masaajidka 24 saac difaac ugu jiray halkaas khawaarijta jabka ku gaarsiiyay intii ka dhaawacantay ayaan si gaar ah u soo aragnay ee dhaawacyada guud ahaanba halyeynimo iyo geesnimo dheeri ah oo aan hore loo arkin ayay muujiyeen ummadda Soomaaliyeedna ay ku faani doonto insha Allah taala waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah ayaan u rajaynaynaa isbitaalka xoogga iyo mas'uuliyiintiisa iyo dadaalka ay wadaan ayaan aragnay ee dhakhaatiirta dadaalka dheeri ay wadaan waxaan marqaati ka nahay isbitaalka in capacity-giisa ay aad u soo korortay maxay dhakhaatiir takhasus walba lehna ay joogaan qalliimadii loo baahnaa oo dhan ay heleen annagana ka wasaaradda caafimaad ahaan waxaan ballan qaadaynaa isbitaalka inaan garab taagnaan doono hore waxaan ugu wareejinay gaari ambalaas ah waxaan ku wareejinay daawooyinka gargaarka degdega ah iyo daawooyinka emergency-ga hore ugu wareejinay hadda maanta waxaan ballan qaadaynaa inaan ku wareejin doono isbitaalka xoogga 10 sariir oo ICU loogu talagalay inaan ku wareejin doono iyo soo kale qalab isbitaal iyo daawo inaan ku wareejin doono ayaan ballan qaadaynaa iyo gaari ambalaas cusub ah inaan ku wareejin doono ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in geesiyaashaasi qarankooda u soo dhibaatooday ay garab istaagaan maxay ahayd ciidamada iyo maaragtay macaawisleyda deegaanada ka difaacaya argagixisada mar walba in la dhiirigeliyo oo la garab istaago ayaan ummadda Soomaaliyeed dhan ugu baaqayaa annagana ka wasaaradda caafimaad ahaan daryeelkooda wax dadaal ah kama reeban doono hadduu Ilaahay yiraahdo dhammaan aniga iyo mas'uuliyiinta ila taagan waxaan u howlgali doonaa sidii dhaawacyada halkaan jiifo maaragtay daryeelka ay u baahan yihiin ay u heli lahaayeen dal iyo dibad meesha noqotaba kuwa hadda halkaan aan weli soo gaarin ama maaragtay ayagana soo kale maaragtay deegaanadii weli joogo in daryeel fiican ay helaan ayaan ka shaqayn doonaa marka ummadda Soomaaliyeed maxay ahayd si gaar ah ay u xusi doontaa 25ka dhalinyaro ee masaajidka 24 saac difaac ugu jiray ee khawaarijta halkaas dhowr jeer ku jibiyay ayagana dhimashay dhaawac uu ka soo gaaray sida dhalinyartii 15ka SWL loo xuso ayaa loo xusi doonaa buwaagta ayaana lagu qori doonaa taariikhda ay xusi doonto marka abaalkoodana Ilaahayna uu u gudi doonaa shacabka Soomaaliyeedna way u ogsoonaan doonaan. si kastaba ahaatee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa waxa ay ururka Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sida deegaanada Ceel Ali Axmed, Al-Kawthar iyo deegaano kale. waxaana deegaano kale oo hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe imiga ka socda howlgal ka dhana maleeshiyaadka Al-Shabaab kaasoo la doonayo in laga xoreeyo dhammaan deegaanada kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe.